السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay maanta oo sabti ah taariikhduna ay tahay 1 bisha June sanadka 2024. haddaba daawadayaal barnaamijkan waa kii ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbin doono haddii Allah awood leeyahay uu ka raali noqdo. haddaba dhowr qodob oo muhiim ah ayaynu barnaamijkeena ku falanqeynaynaa. waxaa ka mid ah qodobada barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doono dawlad weyn oo islaam ah ayaa waxay leedahay waxaan diyaar u nahay inaynu ciidamo nabad ilaalin ah u dirno Gaza xilli aynu la socono in Hamas ay diiday cid kasta oo ajnabi ah oo halka timaada ayna u aragto dad u adeegaya Israa'iil inay yihiin. haddaba dawladdaasi waatee sidee wax u jiraan maxay geynaysaa? haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekada waan idin hayaa. waxaa sidoo kale aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa dagaalo culus waxay kula jiraan ciidanka Israa'iil ee xoogga ku soo galay Rafah. wax la yaab leh ayay sameeyeen saacadihii la soo dhaafay. waxay adeegsadeen miinada la yiraahdo cubwa barmiiliya, miinada barmiilka ama fuustada ayaa loo isticmaalay ciidan dhan oo Israa'iiliyiin ayaa dam laga siiyay. haddaba tafaasiil ku saabsan sheekadaas iyana waan idin hayaa. mudaharaadyo waaweyn ayaa waxay ka dhacayaan waddanka Yemen. dadku waxay cambaareynayaan weerarkii ugu dambeeyay Mareykanka iyo Ingiriisku ay ku qaadeen meelo kala duwan oo ka tirsan dalkaas oo dad fara badan ay ku dileen dad kalena ay ku dhaawaceen. odayaashii 80 jirada ahaa ayaa qoryo soo qaatay maanta Yemen. waxay ku qaylinayaan annagu waxaanu la safannahay Falastiin, waxaan la safannahay Falastiin hatta al-maut, ilaa aan ka dhimanno annagii ilmeen. Amerikaan hana duqay ama yuusan duqaynin inta Falastiin nagta lagu hayo Yemen ma hoyanayso. annagoo odayaashii 80 jirada ah ayaa dagaal diyaar u ah oo aan inaan difaacno u aargudno Falastiin. مع فلسطين، نحن مع فلسطين، هي القضية المركزية فلسطين، معنا قضية لا فلسطين، فلسطين فلسطين حتى الموت، لا يوم القيامة، معنا قضية لا فلسطين لما تتحرر فلسطين. qodobadaasi iyo wixii kale ee soo kordha inta aan barnaamijka ku jirno ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan. kulan wanaagsan ee khiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo sabti ah oo aan idinkugu hayo qodobo aad u xiiso badan. waxaan ka hormaraynaa xalay waxaa khudbad jeediyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. ilaa maantay ilaa haddeer waa la lafaguraya, waa la baaraya maxaa laga wadaaliyay khudbadaas. odaga ma isagaa wareeray iska soo istaagay meesha? sidee wax u jiraan? xalay barnaamijkayga si weyn uga hadlay khudbadda. wuxuu ku leeyahay khudbadda qorshe nabadeed oo ay Israa'iil soo diyaarisay ayaan halkan ka sheegayaa u leeyahay. wuxuu ka dhigay waxay Israa'iil ogoshahay. laakiin hadda dadka wax taxliiliya ee arrimahan falanqeeya waxay leeyihiin meeshan waxbaa ka qasan. Netanyahu xafiiskiisa xalayna waray soo saareen, maanta oo sabti ahna war kale soo saareen. taas marka macnaheedu waxa waaye macallinka weyn waxa kan inuu asaga iska abuurtay iska samaystay. Israa'iil aysan shaqo ku lahayn, ujeedadu doonaha kala haado. laakiin Israa'iil inaysan waxaan waxba kala socon. wixii xalay uu daldalayo odaga oo dhan Netanyahu wuxuu leeyahay waxaas wax ka jira ma jiraan.
annaga baashayno meeshii noo taallaa ilaa xamaas aan ka takhalusno oo aan maaragtay ka saarno maxaabiista soo ceshano waxaan joojinayna lama arku leey marka sidee laysu qabadsiinaa xataa hadduu dhihi lahaa muqtarax amriiki waayo ama hindise maraykanka uu keenay waayo hadduu dhihi lahaa biden xalay wax macno lehay lahaan lahayd laakiin wuxuu leeyahay muqtarax israa'iili waa hindise israa'iil ay soo jeedisay xamaas waxaan u sheegaynaa inay aqbasho waa sheeko marka wareersan moogta qoladii lalahaa hindisaha iyagaa keenay oo yaaban oo leh annaga waxaan mala oginbe annaga baashi meeshii noo taagantahay odagaan xalay wuxuu ku hadlahay maxay ahayd marka baashu waa la wareeray waxa kan meelay u socdaan iyo meel kale lama yaqaano dadka qaara waxay ku tacbiiriyeen waxay leeyihiin ameerikaanka isagaa samaystay waxaan dagaalkan inuu joojiyo rabaa qorshahanna qorshihii xamaas ay markii hore ka shaqaynaysay ay keentay waaye marka xamaasaa keentaya xoogaa dhibaysa wuxuu ka dhigay marka israa'iilaa keentay israa'iilna waatan hadda diidan goordha waa ugu dambaysay aljaziira waxay soo xiganaysaa xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu war waxaa kan arka waa la yaaba meeshaan meel loo socdo iyo meel kale lama yaqaano haddaba aljaziira ay dituso warbixin ay ka qortay xiise leh xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa war soo saaray wuxuu leeyahay ma jiro wax xabad joojin ah ilaa xamaas laga burburinayo hay-adda wararka u faafisa israa'iil ayaa goordhow baahisay in xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu sheegay in uu markaa aysan waxba iska bedelin qorshahooda ayna jiri doonin wax xabad joojin daa'im la yidhaahdo ilaa inta laga burburinayo xarakada islaamiga ee xamaas garabkeeda militariga iyo waxa dhan netanyahu ayaa wuxuu sheegay in shuruudahoodii hore aysan waxba iska bedelin waxaana ay tahay in xamaas laga takhaluso maxaabiista lasoo furto marka saas way hawshayna leeyihin macnaha waxay u muuqataa leeyahay xafiiska ra-iisul wasaaraha netanyahu laftirkiisa inuu ku shoogay waxa biden xalay daldalayo lahaa israa'iilaa soo gudbis israa'iil meeqa waaye halkaas xafiisoo lagama xukumo ma qolo kalaa israa'iila fikradda keentay sidee wax u jiraan dadkii waa isku wareersayeen meel loo socdo iyo meel kale lama yaqaano xalayna si fiicana uga hadlay haddana hawshaas warkii biden halkaasuu baraa netanyahuna halkaanu taagay waa cajiib waayahay qodobkaas halkaasaan kaga gudbaynaa qodobka labaad ee barnaamijka waxa waaye mudaaharaadyaa ka socda yaman horaa idinkugu sheegay shalay 2 barnaamijaa ka sameeyay oo aada u xiiso badan inaad daawateenaan filaa yaman maanta waxaa ka socda mudaaharaad magaalooyin waaweynaa la isugu soo baxay waatay maraykan iyo ingiriis duqaymo ku hayeen meelo badan dhowr qofay dileen oo yamaniyiina marka dadka waxay cambaaraynayeen weeraradaas waxay leeyihiin weeraradaas annaga waxa waaye waa cambaaraynaynaa maraykan iyo ingiriis laakiin mid ha ogaadeen weerarna laku soo qaaday nagama hor istaagi karo inaynu u kaalmayno u hiilinno walaalahen falastiin wax dhici kara maa waana xasuuqi kartaan bas laakiin annagu maca falastiinaan nahay falastiin maceedaan nahay ayadaan la jirnaa wax alla wixii dhibaato ku ah inta nagta lagu hayo annagana waxaan samayn karnaa samaynaynaa hawshaas meelay noo taallaa mudaaharaadku marka waa caadi awal dad caadiya soo bixi jira hawshu waa caadi maanta way ka duwaneen odayaashii 80 jirada ayaa mudaaharaadka la keenay oo kasoo qayb galo qoryo soo qaatay weliba odayii hadda aan idiin soo dayn doono dareenkiisu ka hadlaya wuxuu leeyahay annaga falastiinaan la jirnaa ilaa aan ka dhimanno xataa almowt uu leeyay ilaa aan ka dhimanayno amerikaan yuu isdaalinin nimankan haddaa u cagajuglaysid duqduqaysid amay joojiyaan wax ma jirto annaga falastiin maceedaan nahu leeyay falastiinaan la jirnaa falastiinaan
وشقينا أنت نكتر وجوه أننا نروح نقارن نكتك جلنا قرقي سوساس وايستا قيلة كب حيسة ترين كأموجنيو يوحى إني نبكي يساوي أركيس وياس نمكن حوتها يمنيتا على عادي ما نمكن عد كستاو قاعد يوتاكت وحليري نمكن نمسوتش استوى أنا رجل عضويا سديت تنشركة كو قيلنا يا أنا مع فلسطين الناي إلى أن كلم النولي مع فلسطين نحن مع فلسطين هي القضية المركزية فلسطين معنا قضية لا فلسطين 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 حتى الموت لا يوم القيامة معنا قضية لا فلسطين ما تتحرر فلسطين marka isaguna halkaas ay kaga gudbaynaa waxa noo soo socda dawladii weyneyd ee leh ciidan nabad ilaalin geynaa Gaza saan xabad joojinta u kontroolo kula ya u kontroole sootay Hamas diiday ay tiri muslim iyo gaal cid aan ogolaanayna mare cidii halkaan la keeno macalinka weyn Israa'iil u adeegaya nagta gelinayna qoladaas marka qolo noocay ah waa idin haya sheekaadi kaga haya laakiin markan waxaan ku hormaraynaa rafax dagaalada ka socda horta gaajada yaa soo laabataa leeyahay Gaza Aljazeera waxaan ku arkay dad gaajo u dhintay caruur iyo waxa kan ah nafaqa darro iyo gaajo iyo loo dhimanaa sababtoo ah meelihii wax soo galayeen xuduudihii wixii oo dhan way xiriyeen ilaahay marka dadka u kaalmay ducada ha joojinina ilaahay dadka Falastiiniyiinta faraj khayr qaba ha u furo marka u duceeyay midda kale rafaxa dagaal ka socdaan aad u qaraar dagaalku hoobiyo waa leeyahay alyaasiin waa leeyahay miinooyin dhulka la dhigo shabaabka wala yiraahdo taangiyada loo dhigi jiray waa ogeedeen kuwaas uu lahaa hadda sheeka kala timid waayadan lama arkin alle hadda koor waa isticmaaleen mar laakiin hadda waayadan ma isticmaaleen muqaawamada cubwa barmiiliya la yiraahdaa barmiil sidiisaba waxa la yiraahdaa Soomaaligana dad u isticmaala foostada barmiila la yiraahdaa marka miina barmiil leh cubwa barmiiliya oo sida barmiilka oo kale u samaysan oo foostada oo kale u samaysan miina ah ayaa nimankii lagu harqiimaad qaara dhulku la go'aal leeyahay qaara waxa ka dhacay holac meesha waa la yaab yaa sameynaya muqaawamada gaar ahaan nimanka la Saraaya al-Qudus al-Qassam ma nimankii Saraaya al-Qudus ahaa ayaa maanta taariikh ku dhigay nimankii haddaba aan idin tusoo sheekadan cajiibka Aljazeera ayaa wax ka qortay waxay leedahay Saraaya al-Qudus waxay sheegtay inay qarxisay aaliyaad ama gawaari gaashaaman oo ay wateen ciidanka Israa'iil waxay ku qarxiyeen Rafax haddaba sheekada cajiibka marka way sii socotaa waxa leeyahay Saraaya al-Qudus waxay yiraahdeen waxaynu burburinay baabuur gaashaaman oo Israa'iil ay leedahay waxaana ku burburinay miinada la yiraahdo barmiiliya ama cubwa barmiiliya miinada la yiraahdo oo barmiilka ama foostada oo waliba waxay leeyihiin shadiidatul infijaar oo qaraxeeduna aad u weyn yahay ayaa nimankii maanta aan maaratay u dhignay markaas waxaana ay ka dhacday sheekadan deegaanka la yiraahdo Ra'id ee ku yaala bariga Rafax والله وريرا كان عباش لما كان إسرائيليتا يقولوا ماشاس دالحيس موجوغان لمن وحا كهر سرايا القدس يا القسام يا مقاومة عادي معه شديد الانفجار وحواي قرح انت كراو قرح جرتي وحي ايديجي جيرين شديد الانفجار كان كمجرين معناها قرح وين كمجرين مرا نوركي ودل لا لغوين ولا ودا هلعي يب ماشاس امتحارا كايست marka dagaaladaas ayaguna halka ka socda Rafax sheekada cajiibka ah ayaa ka soo korortay oo la yaab kale waayay marka waxaan u gudbaynaa sheekada la yaab kale dawlad islaam ah oo waliba ah midda ugu dadka badan sida la leeyahay dawladaha islaamka macnaha muslimiinta ku nool ayaa waxay ka badan yihiin dhowr dawladood oo islaam ah oo la isku daray waa Indonesia cajiib madaxweynaheeda oo dhawaan la doortay ayaa Singapore wuxuu uga qayb galay shir
wuxuu ku leeyahay hadalkii Biden aad u fiicnaa xabad joojinta way fiicantaa nina waxaad moodaaba adduunyada waxa ka socda inuusan la socon awoodaa madaxweynaha Indonesia oday 70 jiro oo waxba la socod Biden wuxuu leeyahay waa si fiican u yeelay hadalkaas meel fiican u dhigay annagu kula marka waxaan diyaar u nahay inaan ciidan nabad ilaalina u dirno halkaas oo kulaha xabad joojinta ilaaliya waxa meesha ka socda waxaad moodaa annaga aan daldalayno waayadan aan sheegayno oo telefishinada adduunka ka hadlayaba ninkan inuusan la soconaamud wuxuu kaloo yiri ilaa 1,000 qof ayaan qaadaynaa oo dadka xanuunsanaya oo dhaawacmay oo meesha waxba looga daweyn karin waa qaadaynaa waxaan geenaynaa waddankeena waa soo daweynaynaa horta nimankan Indonesiaanka la leeyahay Gaza abaale ku leeyihiin aan horta idin sheego taariikhdooda ninkan hadda madaxweynaha noqday oo iska weynayo waxa uu ka hadlayay ma laakiin nimanka Indonesiaanka Gaza way taageereen isbitaalada waaweyn ee Gaza ka furan mid kamida Indonesia lahaa hadda Israa'iil burburisay oo waa xarmay mustashfa Indonesia waa kan ugu weyn alaha ama midka labaad ashifa marka laga soo tago midka kala waay isbitaalkaas free waay dawada waa free lacag la'aan qaliimada waa dhaqaatiir waa weyn ay diri jireen waa lacag la'aan wax kasta dadku u sameynayeen Falastiin reer Gaza aad ay u jeclaayeen isbitaal Indonesia isbitaalkii marka waa la burburiyay isbitaalkii markii laga burburiyay hadda marka ninkan odaga ah wuxuu leeyahay sheekadii Hamas ay ka digaysay ayuu marka ninkan rabaa Israa'iil way rabtaaba cid waxan kala wareegto oo maartay Hamas ay qoorta u galiso way rabaan laakiin Hamas ma ogola waxay leeyihiin nimana god noogu jiree hanagu taataabanin maxay idinka galaadig shalay markii nagtana lagu hay maxaa u imaanweyseen marka aan idin tusoo warbixinta cajiibka ee laga qoray wargeyska Al-Qudus Al-Arabi ee ka soo baxay magaalada London ayaa maanta wuxuu qoray madaxweynaha waddanka Indonesia ee la doortay ayaa wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin iyaga inay diraan ciidan nabad ilaalin oo ay u diraan Gaza ayuu leeyahay sheekadu markii way sii socotay wuxuu leeyahay madaxweynaha waddanka Indonesia ee la doortay ninka la yiraahdo Prabowo Subianto ayaa maanta oo sabti ah sheegay in ay waddankiisu diyaar u yahay ciidan nabad ilaalin inay u diraan si ay u ilaaliyaan oo fuliyaan xabad joojinta marinka Gaza laga doonayo in laga hirgeliyo haddii ay arrintaas suuro gasho Prabowo oo hadal ka jeediyay shir ka dhacay Singapore oo looga hadlayay amniga Aasiya ayaa waxa uu sheegay in qorshaha uu soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee saddexda marxaladood ka koobnaa ee xalay uu sheegay oo xabad joojintu ay qayb ka ahayd Gaza inay tahay tallaabo wanaagsan oo dhanka saxda ah loo qaaday ninka saasuu leeyahay marka waxay soo qaadanayaan warbaahinta carabta waxay leeyihiin ninkan odagan 70 jirka ah adduunba lama socdo waxa meesha ka dhacaya iyo Hamas waxay leedahay iyo wax noo imaan kara malada meesha ka socoto wuxuu moodaa dhul iska nabdoon oo nabad ilaalin hal la geeyay meesha maxaa la ilaalinaa meeshan qadiyada la isku hayaa qadiyad yaa nabadda laga ilaalinaa nabad ilaalin dad qabaa'il isku haysta iyo dad maaragtay kooxo kale oo mucaarada iyo dad kale oo nagta isku haya dhexdooda iyo waxaas nabad ilaalin loo diraa meesha nabadda la ilaalinaa maxay nabad oo meesha ka jirto la ilaalinaa maxay tahay dawlad way Israa'iil waa la ogyahay iyada weerar qaadi ka joogsa hadii la yiraahdo xabad maba ka dhacaysa meesha maamul Hamas ee leedahay marka ninkan waa wareersan yahay kuleeyeen dadka wax falaq adduunba lama socday kuleeyeen barnaamijkeygii ugu horeeyay maanta oo sabti akhyaaray inta ayaan ku soo gabagabeynayaa haddii Allah idmo barnaamijyo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa isla maanta oo sabti ah wixii warar soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan wixii fakaraya aragti ah ka qabtaan barnaamijka noogu soo qora qaybta commentiska iyo fariimaha barnaamijkana like gareeya oo share gareeya haddaad Facebook iyo YouTube labadaba nagala socotaan adigoo mahadsan barnaamijkana subscribe saara YouTube-ka
haddaad nagu cusubtahay facebookana follow garay inta aan mar kale barnaamij ka lamida ku kulmayno akhyaaray nabadgelyo